بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal ilaahay baa mahad iskale raxmadiisa ina siiyey fiirsan neefkaas ilmaha hadda ayuu dhalay waxartaas isla haddana waa taas way nuugaysaa ilaahay raxmadiisa ayay ku ahaatay inay nuugto oo yacni ku ilhaamiyey qof u sheegay oo kalena ma leh hadda waa fiirsan ilmaha yarka markay dhashaan waad aragteen waxa weeyaan iyagu laftigooda hooyadood naaska markii hore waday ka nuugayaan oo xataa haddii afka loo geliyo in la nuugo oo la dhuuqo yacni yaa baray ilaahay baa ku ilhaamiyey subxaanahu watacaala waxaa ku tusaysaa abuurka alle subxaanahu watacaala iyo suu ilaahay u diyaarshay wax walba oo ilaahay subxaan wax walba inta ku filan caqligooda iyo garashadooda u siiyey oo uu jiro alle waxa cid wax walba abuuray oo waxaan saa u hagaajiyey oo la-aantiisa aanan hagaagsami kareen waxma aysan hagaagsami kareen waxna haddii ilmo kasta oo dhasha yaa bari lahaa oo xayawaankan ka mid ah oo ariga ama geela ama xoolaha dhaqana ka mid ah haddii xataa naaska afka loo geliyo inuu soo nuugo yaa bari lahaa waa cidna wey marka ilaah baa mahadle subxaana watacaala sidaas inoo abuuray inaan ku mahadinana ay tahay hooyada ina siiyey waxaa ku garanaysaa hooyo bolofis waa carabinaysaa carabkay marmarinaysaa waa kaa bolofis waa meel uga dhaqaaqi mayso saas u ag taagnaanaysa oo waardiyeysanaysa oo u carabinaysaa oo maarata naxariis ka hayso wey nabigu waa tuula sala allahu alay slam raxmadda alle boqol buu u qaybiyey boqolkaa raxmadda hal mid baa adduunyada keenay waa midda wax walba isugu naxariisanayaan nool isugu naxariisanayo waa middaas midda ilmuhu marka uu neefku dhalo qoobkiisa ilmaha uga ilaalinayo hooyada raxmadeeda guud oo bini aadanka dhashay baa ka mid ah hooyada in allah naxariista jannada la geeyo qof walba hooyada iyo waalidka ka ducayso oo waxaad yeeshaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhaliyey oo ku siiyey ku mahadi waliba haddana hooyo muslim ah ilaahay ku siiyey oo ilaahay taqaana aabbo muslima alla yaqaana aynu ku mahadino oo ilaahay aynu ku shukrino oo ilaahay aynan ku kufrino waalidkana aynan ku caasiin waad arteen qur-aanka alle subxaana wa tacaala mar kasta ilaahay subxaana wa tacaala ciyaas wuxuu ku xujiyey waalidka loo baarin ma sameeyo wacbudullaha walaa tushriku bihi shay-an bilwaalidayni ixsaana ilaahay aad kale wuxuu ku leeyahay waqadaa rabbuka allaa tacbudu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana marka waxa weeyaan ilaahaas aynu ku mahadino halkaa waxaad ka ogaanaysaa diinteenna iyo dhaqankeenna iyo waddankeenna waxaynoo ka fiicanay ma jiraan qof aan allaba aqoon ilaahayba aqoon inaynu naf ka dayno oo ag fadhino waa aynu naf ka raadinayo caqlina maaha talana maaha risqi ilaahay inoo qoray inagoo og haddana ayaan helin meel kasta oon ku noolaano marka aynu waddankeennana ku soo laabanno oo isu soo laabanno isla markaasna waxa waddankeena ka ceyrshay oo qabyaaladda iyo qurunka iyo maamul xumada ahna aynu ka hortagno oo ilaahay kitaabkiisa gacanta midig ku qabsanno ilahay xaggiisa u carar walaalayaal waad aragteen inna wayna qaxday dadkeeni way qaxeen oo dibadahay jiraan intii kalena innaga hadda isqaxinayno oo meeshii aan wada deganaynba waa isku dilaynaa oo waa isku dagaalamaynaa oo waa kala ismaqli la'anahay oo waa kala dambayn la'ana ma garanaysa oo balwaddii iyo xumaantii baa soo badanaya har iyo habeen waxaasna waxaynu shaqaysanay weeyo caradii ilaahay baa ina haysata waliba ilaahay waa noo naxariistay hadduu inoo qaban lahaa waxa aynu samaynay qof inaga ka mid a adduunkaba loogama tageenba marka walaalayaalow ilaahay aynu u laabanno subxaana wa tacaala aynu ilaahay u laabanno aynu nahno innaa ilallaahi raaqibuun aynu dhahno oo ilaahay aynu u raajayno oo ilaahay ku laabanno oo ilaahay subxaana wa tacaala aynu dembigaynu galla ilaahay uga toobadkeenno qabyaaladii ina burburisay khaasatan soomaalinaha waddankeennii maalin cad aynu u burburinay reer hebel iyo reer hebel saynu u wadnayno jifada u hooseysa ay islaysay welina ay dadku sii wadaan caqli xumadooda ay sii wadaan inta doqomada ahayd ay sii wadaan weli meeshii aan oran lahayn war waa ogaanay colaad iyo dhibkay leedahay ilaahay aan u laabanno waa inoo doqonima ilaahay aynu u laabanno walaalayaal haddaynu maanta laabanayno goormaynu laabanayna walaalayaal goormaynu laabanayna ilaahay aynu u laabanno subxaanaka allahumma bixamdika haddaynu ilaahay u laabanno ilaahay ghafuurur raxiim wey dembigoo dhan waa dhaafaa qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmati illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican innahu huwa alghafuuru raxiim وأنيبوا إلى ربكم إلى آخر الآيات وإلهي كهل سبحانه وتعالى ولا إلهي أن أولابن وإلهي أن دم نفو دسن ووالله يا خاصة تمك آدم نفو سنة وين دحليك عنك كلبحنا خاصة غبيات وحلا يرهد وينك عنك كلبحنا إنه ولي غبيات يا فورمون في وحكوشر والله هرم المقارين والله مقارين وحوي قفك يا يقان يا الله ودو يا حق كل رغم كان
kitaabka alla aynu qaadano aynu u cararno qabyaaladana ogaanaya aynu aasno marba maaragtay god ku ridno qabyaalada aynu god ku ridno waa ina baabi'isay hadda waxyaabihii ugu dambeeyey way ka mid tahay in gobollo aan loo kala qaybqaybso gobollo aan u kala qaybqaybsannahayo qabyaaladu ina kala qaybisay haddana gobolkii inta ku sii hadhay aysa sii qaybinayaan haddana tuulada hadda anigu aan jooga oo tuulo yar ah aan dadkayagi jooga isa sii qaybinayn oo isa sii wadno hoos sii wadno waxaas unbaa laga dhaxlaa iyo isdil iyo qurun iyo qashin wax kale lagama helo qabyaalad salkeedii waa soo xaarna ilaahay aan uga laabano walaalayaal waa muslim dhaba aynu noqono islaam baan muslim baanahay qabyaalad baan ku shaqeynaya isma geli kadho yani munaafiq qabyaalad waxaan ku shaqeeya qof munaafiq oo alla aan rumaysnayn waayo nabigu waa tuu lahaa almuslim man salima muslimuuna bilisaanihi wayadi muslimku waa kan ka nabadgalo gacantiisa iyo afkiisaba muslimku ka nabadgalo wey magaranaysa marka waxa weeyaan waa kii nabi ilaahay quraankiisa uu ku yidhi subxaanahu watacaala weeyaan inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum wattaquu llaha lacalakum turxamuun magaranaysa yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaaratu calayha malaa'ikatun ghilaadun shidaan laa yaxsuuna llaaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay nabiga uu lahaa sala allahu calayhi wasalam unsur akhaaka daaliman oo madluuman war halkaa qabo hadduu daalim yahay iyo haddii la dulmiyo asxaabtu waxay yidhahdeen waqtiga carabta imaamahad aan ahaan jireen la garay haddii laga gardaran laakiin hadduu gardaran yahay saw qabanaa waxaad gacanta qaboobaya nabi sal alay slam sababto waxay tahay qofka wax looga gargaaraya waa naar walaalkaa naar ku socda miyaa daawan ka dhah dinka dhah waa maya ku orodoo qabo walaalkaa qabo oo dhibaatooyinka u samaynaya ka qabo oo ilahay xaggiisa ugu dadaal ma garanaysa oo ka qaba naar buu ku socdaa walaalkaa naar ku socda ma dayseen qabyaalada iyo qurunka iyo qashinka walaalkaa ku socdo oo aad ka qaban laadahay wax kale maaha waxa weeyaan naar buu ku socdaa ka qabo oo ilahay xaggiisa u laabo subxaanahu watacaala walaalayaal qof walba ilahay xaggiisa u laabo وإلهي سبحانه وتعالى وحن وديسانا إنه نسوع قبل شرف كيني ثلاثة إله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تعرف لما أنت وحويان لبض بش مارس لبض كون يو أفري لبض كون يو لبض يا أفرتا ويان وكنا بيجان لما تاني يكون بش شعبان كنا فرتني سنة هجرة أنا وأنا عبد المجيد محمد علي بلي بصلة ويمشي نشوفه فسبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته